Maanta waxaan baranaynaa sida Office applicationska sida computerka loogu shubo. Marka waa muhiim in isheeg laptopkaaga ama desktopkaaga inaad softwareka ku shuban karto aadna waxa rabtid aad ku dhex samaysan kartid. Marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay sida Office-ka loogu shubto computerka. Marka hore waa soo download gareynaynaa, kadibna extraction aan ku sameynaynaa. After extraction then setup kan gelaynaa. Setup kan waxaan leenahay installation samey. Marka ugu horeysa waa inaad barashada aad gashaa appkaaga ama website ahaan waa inaad u gashaa. Markaad barashada joogto ciwaankeena barashada .tk tan waxaa ku soo baxayo meesha download-ka kor haddaad fiirsid waxaa arkaysaa falaarta yar baad ku dhufanaysaa. Then waxaad ku dhufanaysaa Microsoft Office 2013 baad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad ku dhufanaysaa download baad ku dhufanaysaa. Aniga haddeertan download kuma dhufanayo, lacala waxaa laga yaabaa in email ku weydiiyo inta downloadka uusan kusoo bixin. Emailkaaga geli iyo passwordkaaga, then downloadka waad bilaabi kartaa. then aniga waa soo download gareeyay. Marka qaybteena download isku galaya. Markaad furta computer then download aad tagto, download ku jira. then waxaa leedahay open baa leedahay, wuu zip gareysan yahay. markuu furmo waxaa leedahay extract yaa leedahay extract. okay, desktop waa ku dhufanaysaa extract desktop ama folder cusub u sameynaysaa. then folderkaas magaca automatic waaye u sameysmayaa. then okay baa leedahay, then extraction ku sameynayaa. okay, extraction kuu dhameeyay then waa iska xirinaa. desktopkaad tagaysaa, folderka waa kana Microsoft Office Professional. so 2013 rabna inaan computerka ku shubano. then waxaa leedahay open, folderka gudaha sii furaysaa, baad double click siinaysaa ama right click open baa leedahay, then yes baa leedahay. okay, kan minimize aan ku sameynaynaa. okay, kadibna waxaad fiirinaysaa license-ga oo la dhaho end user license agreement. then hoos marka akhrisid ama badana lama aqriyo, then I accept the continue baa leedahay. marka haddaad rabtid customize baa ka dhigi kartaa. haddaad rabtid install aa ku dhufanaysaa. marka aniga waxaan rabnaa inaan install ku dhufno. install aa leenahay, then installation-ka wuu bilaabayaa. markaasaa ka aragtid dhameeyay finalizing installation, this may take a few minutes. marka waa gabagabo. haddeertaan waxaan ku guuleysanay inaan laptopka aan ku shubno Office applicationska. marka Office applicationska wuxuu iskugu jiraa Word-ka ka mid ah, Microsoft Word-ka iyo PowerPoint-ga, Excel-ka, Access-ka. marka waa badan yihiin. kadibna waxaa leedahay meesha hoose close baa ku dhufanaysaa. marka ugu horeyso aad ku shubtid waa inaad iska tijaabisaa in uu ku jiro applicationada. marka start button-kaad ku dhufanaysaa, then waxaad ku dhufanaysaa all programs Microsoft Office 2013. then waxaad dooranaysaa Word 2013.
marka waa kana wordkii waa ku shubnay kadibna markaad rabtid inaad furto blank page baad furaysaa qaybtan yar hadda kusoo baxay first things is first waxaa leedahay ask me later waa ku dhufanaysaa then accept yaa ku dhufanaysaa then open baa leedahay blank page documentiga furaysaa okay next haddana ku dhufanaysaa then close aa leedahay in waa kaa marka officekeeni waa noo furan yahay meesha cad baa wax lagu qoraa welcome to learn office applications okay